halkani waa Faris TV oo aad kala socon kartaan wararka geeska iyo geyga ay Soomaalidu degto oo xiiso badan qodobada ugu doorka roon ee aan idinku hayno wararkana waxaa ka mid ah Mustafe Cagjar iyo Kulankii degdega ahaa ee Xalay oo isugu yeedhay uqaasha Beeshiisa reer Cali ee reer Xidhay Xariir ahaa oo xidhay Sxbkii Abiy oo ugu dambeyn iska xaadiriyay safaaradda Maraykanka ee Addis Ababa fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe sar channelka like dheh videoga share dheh asxaabtaada la sii wadaag wixii kala bixin ana xagga hoose noogu reeb kusoo dhawaada faahfaahinta qodobada wararka waxaana qodobada wararka oo faahfaahsan idinla socodsiinaya anigoo ah Marwayso Mustafe Cagjar ayaa xalay fiidkii isaga oo ku sugan mid ka mid ah guryaha martida ee madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida kulan degdeg ah isugu yeedhay waxgaradka Beeshiisa reer Cali ee reer Xidhay wuxuuna ku wargeliyay inuu xaalka Itoobiya kharaar yahay uuna eg yahay inay TPLF soo laabanayso talada dalkana la wareegayso oo wadamadii reer galbeedku inay TPLF dalka dib u qabato ay hormuud ka yihiin hub iyo saadkana u soo marinayaan Masar iyo Suudaan oo ay gacanta ugu weyn ee soo laabashada TPLF iyagu leeyihiin wuxuu aad u aflagaadeeyey jaahil askari ah oo aan siyaasad waxba ka garanayninna ku tilmaamay Abiy ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya marka uu Mustafe Cagjar sheekadan la wadaagayo waxgaradkiisa reer Cali wuxuu ahaa mid uu argagax badani ka muuqdo degdegayay oo aad moodo in keligii lagu soo duulay dhinacna bishimaha ayuu cunayay oo caro aad u badan ayaa ka muuqatay sida uu oday adeerkay ah oo shirka qayb ka ahaa khadka taleefanka igu sheegay wuxuu Mustafe Cagjar hadalka wadaba wuxuu ugu dambeyn waxgaradka weydiiyey maxaynu yeelnaa haddii ay TPLF soo noqoto aanu noolaan maayo oo xataa haddii aan dalka ka baxo waa balaayo nimankaasi oo meesha aan tagaba way iga soo qaban idinkana dekanahayga ayaa laydiin dili bal taliya hadal iyo dhammaantii odayaashii waxay kula taliyeen Mustafe Cagjar inay isaga Maxamed Cagjar Farxaan Cagjar iyo ninkeeda iyo oday Cagjarba ay meel oon u baxsadaan oo ay dalka ka baxaan bal iyaga toodu ha dambayse waynu eegi oo waa fikir fiican ayaana lagu soo kala tagay waxaa magaalada Jigjiga lagu xidhay Cabdullaahi iyo Mustafe iyaga oo laga qabtay guriga fanaanka weyn ee Xariir Cabdullaahi oo ay marti u ahaayeen Cabdullaahi waa wiil dhalinyaro aqoon-yahan ah aad u degan akhlaaq wacan dulqaad iyo deganaashana Rabbi ku manaystay oo taxadar badan wax dhacdhacahana aan lahayn haba yaraatee aamusan oo taxadar badan Cabdullaahi ma hayo wax camal ah oo shaqadii u hayay bilowgii Mustafe Cagjar yimidba waa laga eriyey muddo 3 sano ku dhowna waa shaqo la'aan wax dambi ah oo uu galayna ma jirto haba yaraatee ee keliya waxaa loo xidhay rooble oo xukuumadda Mustafe Cagjar nacab aadna uga soo horjeeda ayaad saaxiib run ah tihiin waxaa xidhay wiilka weyn ee Mustafe Cagjar uu dhalay waxaana loo xidhay qaab handadaad kibir cay iyo aflagaado ku laban tahay Cabdullaahi waxay moodayeen inuu qabiil ahaan reer Cabdille ka dhashay ilaan kuwaasun bay cayrsadaane laakiin waxaan u sheegaynaa inuusan reer Cabdille ahayn ee wiilku ka dhashay reer Ogaadsan Xariir oo falkan foosha xun ka damqaday ayaa sheegay in xitaa lagu ixtiraami waayay martida gurigiisa joogtay mar haddii martidiisii lagu ixtiraami waayeyna ay qumanayd in la wada xidho
oo isagoo reer Isaaq oo Mustafe Cagjar adeer u yahayna aan laga tagin wiilka reer Ugaadsanna la xidho. arrintan noocan ah ayuu Xariir ku tilmaamay tallaabo khaldan oo qaxinaysa dhalinyarada deegaanka haddii camal la'aan iyo cayrsi la isugu daro. xogo hoose ayaase sheegaya inuu Xariir laftiisu ka dambeeyay xadhigga wiilka reer Ugaadsan oo weliba isagu shir qolay xadhiggana qayb ka ahaa, walow arrintan ay dhalinyarada inteeda badani beeninayso. Xariirna uu aad ugu dadaalayo siduu u soo dayn lahaa saaxiibkii. Abiy Axmed ayaa la sheegayaa inuu ugu dambeyn safaaradda uu Maraykanku ku leeyahay Addis Ababa uu Orod ku galay kadib markii maalmahan TPLF gacan sarreyn la timid oo 85% ciidankiisii laga qabtay, saad iyo sanadihiina laga furtay, lagalana wareegay 90% fariisimadii ciidanka iyo gacan ku haynta deegaanka Xidhay. Abiy ayaa la sheegayaa inuu safaaradda u sheegay inuu dagaalka joojinayo, wadahadalna ogol yahay oo uu waqti xaadirkan diyaar u yahay, laakiin waa xilli ay xeedho iyo fandhaal kala dhaceen oo aan aqbal jirin, maadaama oo horey loogaga quustay inuu dagaalka joojiyo, wadahadal ku dhammeeyo dhibka jira, ciidamada Eritreyana bannaanka u saaro. weli safaaradda wax jawaab ah lagama hayo, laakiin waxaa loo badinayaa inay u caqablaalaadin doonto TPLFna dhinacooda ku dhigi doonto hawshiina wata oogintiisa dhag jaraka hawsinine. dhanka kale Getachew Reda afhayeenka xisbiga mayalka adag ee TPLF ayaa ku wargeliyey ciidamada Abiy inta dhiman inay degdeg isu soo dhiibaan, haddii kale inay jab iyo naasabeel kala kulmi doonaan ciidamada TPLF oo aan u ogolaan doonin inuu xataa firdhad ka baxsado.